muddo ku dhow 10 saacadood ayaa ay xidhnayd dowga degmada Sheekh kadib markii ay isku dhaceen xalay afartii laba gaari oo nooca xamuulka qaada. Shilkan ayaa hakad geliyay guud ahaanba gaadiidka u kala gooshaya bariga iyo galbeedka Soomaaliya. Taliyaha qaybta gobolka Saaxil oo goobtaasi isagu ku sugnaa ayaa u baaqay dowladda Soomaaliland in ay bixiso gaari wiisha oo ay yeelato buurtani maadaama jidkanu yahay mid halbowlo u ah guud ahaanba Soomaaliland haddii uu in yar xidhmana uu sababi karo inuu kala xidhmo guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. kana waa laba gaari ba isku dhacay gaarigaas waaraadkii loo iibsiday gaarina uu rarnaa wuxuu ka baastu siday labada gaari markay isku dhaceen gaarigii weynaa wadadii uu gooyo uu karoosay wadadii oo xidhan oo xagga kan shiikh ay taagan yihiin 60 gaari oo ari sida 40 cawsida ayaa ugu nimi iyo kuwii reerka siday waxaan sameynay markaa meel ayar oo banaan baan cagaf soo kaxaynay oo baabuurta siday xoolaha siday aanu ka soo deynay waxaan ku xijinay dadkii baabuurta yaran watay cawskii baa ku xigay galikii hore oo kuwaas soconayay baabuurtii waaraadka ahaa ee magaranaysa rarka soo dhigtay fudfudud way ka talaabaysay waxa xandibnay baabuurtii waaweyneed ee cadhameedlayaasha ahayd oo meesha mari kari weyday gaari baa loo keenay alaabtii waa laga rogay alxamdulillaah rabbil caalamiin imika ay saacadu ay tahay labadii oo 4 mirir la ayaan gaariga ka saaray meeshii hadda baabuurtii waaweyneed waa kuwa soconaya shil hore meesha uu ka dhaco gaariga uu jiifaa kii waaraadka ahana uu yaala gaarigii laakiin wadada gooyay ee cadhameedla ahaa si toos ah uga baxay markii rarkii laga rogay marka gaadiidkii saas uu soconaya kii rarnaa ee berbere ka yimi iyo kii ka yimi xagga burca ka yimi labadiba si wanaagsan bay dariiqii ay u soconayaan laakiin waxa laga maarmaana in wiish loo sameeyo dowga shiikh oo shiikh loo dhigo ama berberaba meel adigu geelay xayima loo dhigo garanaysaa gobol ama degmaha loo dhigo oo lagu magacaabo oo lagu qoro wiishkaas dowga lagu qoro waa meel halbowla waa meel bari oo dhan gaadiidka ka yimaada iyo gobolada Saaxil iyo Hargeysa bariga galbeed isku xidha haday goodo 3,000 oo gaari bay isugu imanaya 3 saacadood sidaa darteed waxa wanaagsan in laga hawl galo oo wiish si dhaqso loo yeero si gaadiidka iyo dadku aan ugu xadin maamulka gobolka Saaxil iyo madaxda degmooyinka Sheekh iyo Berbera ayaa iyaguna ku hawlanaa ilaa habeenkii xalay ahaa sidii loo isticmaali lahaa jidkan isla markaana ay ugu soo celin lahaayeen habsamida socodka gaadiidka oo kala gooshaya bariga iyo galbeedka Soomaaliland maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo barasaabka gobolka Saaxil oo halkaas kula kulmay ayaa iyaguna ka hadlay shilkan booliiska gobolka iyo maamulka degmada Sheekh ilaa iyo xalay ilaa saacada ku jira wadada Porto Xoran taliyaha qaybta gobolka Saaxil runtii aad uga hawlgalay taasoo aad uga si fiican inay wadadan xidhnaato oo halbowlaha dalka oo dhan bariga iyo galbeedka gawaaridan sida xoolaha oo habeenada si xadaaf ah socdo qolqol adlooniskiyo ayaa shilal ku dhacay shilal kala duwan baa ku galeen insha Allah waa habeenkii afraad leh ama dadka gaadiidleyda buurta Sheekh dadka fur ka yimaada oo gawaaridan waaweyn ee taaga wada jira oo buurta Sheekh aqoon u lahayn ana break uu qabanay waxa la reenay arinta laga taxadiro kulay way iska dhacay ayaa noqonaya kii labaad ee maalmihii ay soo dhaafnay ka dhacay buurta degmada Sheekh Cabdirashiid Mubaarak Cabdirashiid Suur تلفزيون كعالمي RT دقمة الشيخ